halkani waa Faris TV kala socon kartaan wararkii u dambeeyay geeska iyo geyga Soomaalida degto qodobada ugu doorkan wararka aan idin haynana waxaa ka mid ah xaaladda caafimaad ee siyaasadda warka oo laga dayrinayo ciidamada TPLF oo diyaarad soo riday carcar culus iyo gulifyo hor leh wada xisbiga OFC oo xaraan ku tilmaamay doorashadii Itoobiya lixaad محمد عمر جبل عكر كنتم بقولكي وقعت الداخل مامل كمقالة دقحبور إيو دقمدة دقحبور مالكي وصحراء انت عندنا نبقى دقلين غضبلا وركي نغفا فضلا سبسكرايب فوقا والشمال كان جنبرال كان فروسيا وإيشو حبها ودن بي لايك شير إيو كومنتي كان نبقى تسودوا هذا وركي وفافاس sheegaya inuu Isayaas Afwerki Eritrea 30 sano meherka bilaa sharciga ku qabay oo xanuun la ildaran yahay oo tabcan dhul dhac ah oo nafka dhowr ah yahay wararkan ayaa ilaa iyo xalay la isla dhaxmaraya walow aan xaqiiqada dhabta lahaynin balse wixii soo baxa ee fagaraha bulshada yimaada ay yihiin wax ka jiraan haddaba saadaasha haddii uu Isayaas baqtiyo taala ayaa waxaa la tilmaamayaa inuu abiyi indhabeel dhagabeel iyo afbeel intaba noqonayo maadaama uu abiyi Isayaas baqti noqday iyo inay Tigreegu guulaysan doonaan oo abiyi barqin baxsan doono haddii aan bataliska arad kilo ee Addis Ababa inta loogu dhex tago aysan wiilal yaryar oo askar TPLF ah barkulanka Addis Ababa ee Alawaalayga ku jirin amaba wiil gacan fudud oo san laba xabo dhafoorka ka galinin meelkiisana kaadi la kor istaagin haddaba hadiiba ay dhacdo in Isayaas baqtiyo abiyina baxsad u diyaar garoobo wadankee baad isleedahay abiyi wuu u baxsan doonaa ciidamada Tigreega ee hoostaga taliska TPLF ee dagaalka kula jira ciidamada huwanta ee abiyi iyo Isayaas ayaa xaqiijiyay inay soo rideen diyaarad nooceedu yahay C-130 Hercules taasoo ka soo kacday magaalada Bahardar kuna wajahnayd magaalada Maqale diyaaradan ayaa ciidamada TPLF hogaaminteedu sheegeen inay siday ciidan ka badan 400 oo askari iyo rasaas xisaab la'aan ah waa diyaaradii toddobaad ee tan iyo intuu dagaalku bilowday bishii November ee ka hore ilaa haatan ay ciidamada Tigreegu soo rideen ciidamada TPLF ayaa maalmahan wada carcar dagaal oo hor leh oo u eg in dhiig cusub lagu soo shubay iyagoon ka waabanaynin goobna isla markaana orod iyo awood hor leh la soo baxay iyaga oo gulufyo dagaal oo ay galeen 6 bari ee u dambeysay guulo waaweyn oo dhan walba ka soo hoyay aamuska Mareykanka midowga Yurub Masar iyo Suudaan wuxuu cadeyn u yahay inay dhan kale wax ka wadaan oo ay guulahan ciidamada TPLF ay iyagu garwadeen ka yihiin hoggaanka hay'adda bartilmaameedsan ee gulfiyada TPLF ku qaadayso fadhiyada isbahaysiga ciidamada abiyi iyo kuwa Isayaasna ay iyagu dusha sare ka hagayaan oo farta ay ugu fiiqayaan wiilasha dagaalada ku takhasusay kuna salmay iyo shacabkooda hataa kii qori waayay uu mindiyaha ku dagaalamayo ee macluuriyaashoodii caalamiga ahaa fanaaniintoodii iyo ciddii dhaqaaqi kartay ee qori qaadi kartayba iyadoo nolol wacan ku nool oo qurbaha ku sugan inta ay iskaga timid dacalada dunida ku biiray halganka hubaysan ee nafurista ah ee lagu kicinayo ciidamada ay abiyi iyo Isayaas horjoogaha ka yihiin ee isgarabsiga ku galay deegaanka Tigray lana sheegay inay gabadfalo arxan darra ah oo bini aadamnimada ka baxsan u geysteen shacabka Tigreega wadaana isirsifayn si aan loo helin shakhsi Tigray ah oo boqolka sano ee soo socda madaxa la soo baxa xisbiga mucaaradka ah ee Oromo Federalist Group oo loo soo gaabiyo OFC ayaa bayaan uu ka soo saaray doorashadii lixaad ee Itoobiya ka dhacday daraad ku tilmaamay mid aan xalaal ahayn been abuur ah iyo waxaan waxba ka jirin wana xisbiga OFC ku baaqay in la isugu yimaado dib u heshiisiin qaran lana dhiso dowlad ku meel gaar ah oo loo dhan yahay taasoo dalka u diyaarisa doorasho xor iyo xalaal ah xisbigu bayaankan uu soo saaray wuxuu ciwaan uga dhigay doorasho aan xalaal ahayn
oo loo dhammayn dimuqraadiyad keeni mayso. Bayaanka oo dheera waxaan idinka soo qaadi qodobada ugu muhiimsan oo kala ah. Xisbigu wuxuu cambaareeyay doorashadii daraad oo uu ku tilmaamay mid hal dhinac ahayd oo ay xisbiga DP dominate gareeyeen. Waxay farta ku fiiqeen inuusan xisbiga OFC iyo xisbiga OLF ka qayb qaadanin doorashada, sidaas darteedna aysan wax macno ah samaynaynin doorasho aan laga wada qayb qaadan oo hal dhinac u janjeedha. Waxay nasiib darro ku tilmaameen in isbeddelkii ay keeneen shacabka iyo dhalinyarada Oromada ee ay naftooda u hureen iyagoo isgarabsanaya inuu ahaa mid lagu hungoobay marba haddii xisbiyadii Oromadu aysan ka qayb qaadanin doorashada oo siyaasiyiintoodii ay xidhxidhan yihiin. ugu dambeyn wuxuu xisbiga OFC soo jeediyey in degdeg loo dhiso dowlad ku-meel gaar ah oo loo dhan yahay, kadibna la qabto wada hadal qaran oo nabadeed oo daacad laga wada yahay si dhibka uu hadda dalku ku jiro looga saaro. Markaas kadibna la diyaariyo heshiis la isku waafaqsan yahay oo doorasho xor iyo xalaal ah waddanka u hogaaminaysa, daacadna ay ka yihiin dhammaan bahwadaagta siyaasaddu. xilligan adag ee dalkeenu ku jiro ee taariikhda abid nooca siyaasadeed uusan ina soo marin ee go'aan qaadashada adag u baahan, diyaar baan u nahay inaan dhankayaga kala qayb qaadano sidii loo samayn lahaa nabad waarta iyo isbeddel dimuqraadiyadeed ayuu xisbigu hadalkiisii ku soo afmeeray. waxaa xusid mudan in hogaamintii xisbiga OFC oo ahaa Bakare Garba iyo Jawaar Maxamed ay jeelka liinta ku cabayaan, islamarkaana ay horaankii diyaargarowga doorashada qaadaceen, sheegeenna inaysan doorashada qayb ka ahaanaynin maadaama oo ay hogaamintoodii cabsiyeysan yihiin. dakhliga u badan ee soo gala degmada Dhagaxbuur wuxuu ka soo xaroodaa keelaga ku yaala qabalaha Higlaaley oo ah marin muhiim ah oo ilaa gaadiidka Berbera iyo Hargeysa ka yimaada ay maraan lagana qaado dakhli aad u badan. haddaba lacagtaasi ma tahay mid u soo xaroota dowladda lana geliyo buugaagta lagu qaado canshuurta? su-aashaas jawaabteedu waa maya, oo dakhligaasi uma xaroodo dowladda mana galo buugaagta canshuurta ee wuxuu si toos ah u galaa jeebka Maxamed Cumar Dubbad oo loo garan og yahay Cagjar, ahna aabaha dhalay Mustafa Cagjar, madaxweynaha deegaanka Soomaalida. waxaana u ururiya oo ay shurako ku yihiin gudoomiyaha degmada, hogaanka nabadgelyada iyo madaxxafiiseedyo kale. waana mid habeen kasta lagu xisaabtamo lacagtaasi oo aysan waxna iska dhimi karin. canshuur qaado kasta la iskama geeyo goobtaas keelaaga, waxaase ku qoran oo lagu og yahay kolba cidda ay gudoomiyaha iyo xubnahaas kale raaliga ka yihiin, oo xitaa maareeyaha xafiiska dakhliga xukuma ma geyn karo cid aysan iyagu ogeyn, oo waa khad cas oo aan la geli karin. sababtuna waa inuusan qorshahan kala goorsigu fashilmin oo cid kale ogaanin. Maxamed Cumar Dubbad oo loo garan og yahay Cagjar waa Mustafa Cagjar aabihii, isaga wixiisu waa geedka go'an oo dakhliga maamulka magaalada Dhagaxbuur iyo degmadaba ka soo xarooda wuxuu ku leeyahay 50% maalin kasta. ganacsiga Dhagaxbuur wuxuu u xidhan yahay Maxamed Cagjar iyo Mustafa Cagjar walaashii, halka ganacsiga jaadka magaaladana u qandaraasan yahay Mustafa Cagjar Seedigi. sahay iyo iibir iyo bangiga qarsoon intaba waxaa si toos u leh Maxamed Cagjar, waxaana hoos yimaada hay'adda adeega lacagaha yaryar ee Somali Microfinance Institute. waa sida xogta nagu soo gaadhay. haddaba guud ahaan reer Cagjar iyo qaraabadoodu waxay u egyihiin kuwo xilka u haya inay ka taajiraan ee aan u joogin inay shacabka maamulaan. waxaadna moodaa gofane ku dheggan shacabka deegaanka oo dhiigooda iyo dheecaankoodaba jaqaya.